براءة وحوين البغض والعداوة قفكو هدو كفقي النعب يهي شركي النعب يهي مشركين تين النعب يهي براءة كاملة على غير وقاسة والله بها لكن السبب براءة ما يقاني براءة يا وحا لغو فسره قفا وقانا وحكو فسره شرعنا وحكو فسره عرفنا وحكو فسره وحوين جيبكيسا تفسير أوتا أوه وحكو فسره وإنا ترى وقالوا أنك كوحدين انت نهي marka kitaab uu laabtan male sheekh uu laabtan male sheekhna waxa waa caamigaas kale oo ka aqliga badan isaga laakiin aan cilmi kale dheerayn ogaay ayaa uga soo horeeyay manhajka markaas uu qowl ku xir soo ma jeedin marka war baraa xaal la yiraahdaa fasir baraa waa wuxuu ku leeyahay dadkan dhan tukanay waa gaalo hay gaalo ku yimid marka tiro wuxuu ku leeyahay baraa laga waa hay baraa uu fasir dadka ma yaqaan baraada wuxuu yaqaan in la yiraahdo dadku waa gaalo bis diin digaya iyo kitaab digaya ma jiro waa un dalaal kaliya marka waxa weeye waa guluwi naartuna meel qabow mar dad hore u gudubto iyo dad gadaal uga gaabido qayb ma kala leh isku mid wax ay ku kala duwan tahay mar sababta fiiri yahuudu markay gaaloobay nabi ciise way caayeen waa wala dusinayeen waa kafara sooma kristankiina waa gaaloobeen waa inay ilaahayna kala u qaado waa uga gaalo marka guluwiga iyo taqsiirka midna qayr mar inaad hore u gudubto iyo inaad gadaal u gaabido midna qayr mar ee qayrku ina diinkan miisaankaas ku socoto marka baraa'ada macnaheedu waa nacayb gaalada waa in la nacada mideeda kaleeto qofkan waa gaal inaad tiraado iyo gaal inaadan dhihin laba loo qaybina qofka gaalnimadiisa ittifaaq ay tahay oo gaalnimadiisu aysan bayna culamaa khilaaf lahayn hadaad ogaato gaalaysi weyda gaalnimad ku dhacay oo yahuudda oo kale qofka yiraahdo anu gaala dhihma wax shaki ma leenu gali qofka laakiin qof asal muslim ahaa ee markaas kadib waa gaaloobay la yiri oo aimada muslimiinta ku ugu weyn ay yiraahdeen gabalna aysan ku raacin waa gaaloobay inaad dhihi diido kuna gaaloobay kuna dambaabay miisaal taariku salaadka aimada salafka aktarkooda waliba saxaabada gaal inay yahay ku tageen aimada kale salafkana gaal ma aysan imaam shaafici aba kamid gaal ma uusan bal waagi dambe waxa batayba culimada aan dhahay waa gaal ma aha gaal ma aha kuwa dhahayaba batayba markii dambe weligeed lama arag qof yiri qofkii taariku salaad gaal dhihi diida isaga gaal ma dhixin weli lama arag maxaa yeelay qofka asal muslimnimo u sugneed ka bixidii inuu ka baxay khilaafka ka yimid soo maaha aimad waa weyn saxaabada lagama hayo hal qowl oo leh taariku salaada muslim laakiin inuu gaal yahay aqwaal aan mid iyo laba iyo saddex iyo afar ahayna ka sugan saxaabada waa asaaniid saxiixa uga sugan soo ma jeed xadiis saxiixa oo dhahaya taariku salaad waa muslim maba jirin weligiisna lama arag taariku man taraka salaa fa huwa muslim ma jiro macaani guud in laga raadiyo maaha ومع ذلك علماء تلوا مسلم ولقد لما دين حتى واد دنبودين لما دين اسكدا واد قالودين marka qofka haduu awal muslim aha oo kadib la isku khilaafay ma gaaloobay mise ma gaaloobin adiga hadaad gaal diido ku dambaabnay iska daynad gaalowday waana mas'ala aan laba culimo weligeed ku khilaaf saas inay laakiin inta qofka gaalaysiintiida ku gaalooba waa gaalka gaalnimadiisa la isku waafaqsan gaalka sida yahuuda kristaanka qofka waxa weeyaan gaalnimadiisa culimada muslimiinta dhan ku ijmaacaan kaas qofku markuu diido oo gaal diido waa gaalooba soo ma jeedin marka waa inaad taqaano masaa'ilka diiniga waxaad noqon Allah uga baqdo ka aamus ee waxa weeye qofka gaal tiraahdo gaal lagu diido waa la gaalooba waa iska jaahilin ee diin ilmu ku dhisan ma waa jaahilnimo kaliya jaahil bay ku dhisan soo ma jeedin jahli kaliya ku dhisan marka wuxuu ku leeyahay dadkan waa gaal sababta gaal ila diideen uu ku leeyahay marka waa jaahilnimo bay ku dhisan ila